بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيو warbixinteeni toddobaadlaha ee waxqabadka dowladda iyo arrimaha ugu waaweynaa ee waddanka jira toddobaadkii la soo dhaafay. waxaan ku bilaabaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mudane cabdikariin xuseen guuleed iyo maxamed cabdi waare u kala magacaabay inay noqdaan ergo heer qaran oo qaabilsan arrimaha Somaliland iyo dhinaca xasilinta. sidoo kale madaxweynaha uu warqadii aqoonsiga ka gudoomay danjirayaal cusub oo loo soo magacaabay Soomaaliya kuwaas oo kala danjirayaasha dalalka Djibouti, Canada iyo Cuba. رئيس الوزراء حمزة عبد البر رئيس الوزراء حكومة الفدرال كصوماليا isna waxa uu ka qayb galay munaasabad ku bogaadiyay howlgalka midowga Afrika ee ADMIS xilli ADMIS ay xusayso sanad guuradii koowaad tan iyo markii la dhisay. sababtoo ah ADMIS waxay la wareegtay howlgalkii hore AMISOM marka waa sanad tan iyo markii la aasaasay. sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa uu gudoomiyay toddobaadkan shir looga hadlayay bilaabidda wajiga labaad ee dagaalka dhanka khawaarijta iyo xoreynta dalka. sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga waxay si rasmi ahaan ugu dhawaaqday in dagaalka looga soo horjeedo khawaarijta al-shabaab uu dhawaan bilaabanayo kaas oo qayb ay ka noqonayaan dalalka deriska oo taageeraya dowladda Soomaaliya. golaha wasiirada ayaa sidoo kale isla toddobaadkii inta lagu guda jiray waxa ay ansixiyeen nidaam ama sharci hagaya gaadiidka mootobajaajta ee magaalada Muqdisho ka howlgala. hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Sodma waxay gargaar aadnimo gaarsiisay deegaanada Baardheere, Xudur, Masagawa iyo barakacayaasha ku nool gobolka Banaadir. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxaa loo soo gudbiyay kiisas la xiriira lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. dowladda Soomaaliya waxay kaloo toddobaadkan ku dhawaaqday in guud ahaan la curyaamiyay hanaankii maaliyadeed ee khawaarijta al-shabaab. waxaa kaloo jiray in ay jireen xubno ka tirsan shabaab kuwaas oo isku soo dhiibay ciidamada qaranka. waxaa ka mid ah Cabdi Xasan Xulbaale oo ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab oo iska soo dhiibay gobolka Shabeellaha Hoose toosna isugu dhiibay ciidanka qaranka ee xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale galmudug waxaa jira laba xubnood oo khawaarijta ka tirsan Bishaar Shardi Maxamed Xasi iyo Yusuf Suleymaan Abuukar Jirow Salaaxudiin loo yaqaano oo iyaguna isku soo dhiibay ciidanka daraawiishta galmudug. sidoo kale horjooge Xuseen Daahir Maalin dhigay oo khawaarijta al-shabaab u qaabilsanaa weerarada shacabka lagu beegsanayo ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ay ku sugan degmada Eeldheer ee gobolka degmada dowlad goboleedka galmudug. sidoo kale horjooge la yiraahdo Calas Ibraahim Axmed Barre ayaa lagu soo qabtay howlgal halkaas ay ka fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka ay howlgal ka fuliyeen tuulada la yiraahdo Makuude oo ku taala duleedka Baydhabo halkaas ay ku dileen 14 ka mid ah xubnaha khawaarijta. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka waxay bilowday siina wadaa inay gargaar cunto u fidiso dadka ku nool deegaanada laga xoreeyay al-shabaab iyadoo la fulinayo halkudhigga nabad ku afur. iyo ugu dambeyn guddiga tartanka adeega xashka sanadka 2023 oo soo saaray liiska 15 shirkadood oo ku guuleystay bixinta adeega xashka ee sanadka.